السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن فرح هذه الله اسكسونا قمنا سنة وعن مانتا إيو مقال عصب مقال كان عصب مانتا وحكو سابسن يهي مقال أي سوق لسي ولاشين ماريش بيوتي أي رالي قلين كبحين يسو وحي كدعاي حالي موين هابيون غرمي أهيد وحي دعاي كرالي قلين يسا ولكن قرحو ديقلي فيديو قصة رايان مارتا وحوغا رياكشن كساميو أن اسدول تاقنو قضب يسقاب كأيغو مارتاي اوغا رالي جلسي through the social media يا ربنا إنا مارتاي لو داغنا ما دام يقرح بدنان لهيد لو ودا أركن إن اسسو قر مقدان مقال سو سميان لكن ودعي كده ويدي أيضا soo duubtay muuqaal raali gelin ah muuqaalkaas rabayaan maartay wuxuuga reaction ka bixiyo aan maartay isla daawano bal adoon wax fikirkaaga xagga comment noogu reeb كل واحد دبعته ساوين كل إني تشيل بالملايين I don't know لكن وحي شراء ونركي نبلغرتا فيديو كان مارتاي لما يسترن أحد قبل صناعات بليز أنت سكول جوجيا قال دور عاي أنا لا صولاتي أنا صولاتي ولكن لما نفهمك أي أصحابتي يقول حرنا وكرا لقلنا كمركي ولا لما كان حيسو هناك حي أصحاب لما كان حيسو لسنا صعي شيء ما أنت تقولي جتبو استيل وفهمك يجيبو خنايا أنا نسيت وكلا أنا استدور هينا تحرير كاس وكلا سي إيزي أكون مرتكم مطلقة malaha intaas inay tahay maana muuqaalka hordhiciisa waayo inameen salaameen ba ina haddaan soo fogaadan inaan isku xisno aan sii jeclaano iska war hayna moogigi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقارير السود ومن البجكتان شارك داون نسيم وماريش بيوت channel أنا كان وماريش ومسكين تياري هذا نوعصب هاي ويلكم هذا هو البجكتنا سود وبرلوات محكا عطساني هنا سبسكرايب نوصار في channel كم وقال كذا كيشنا لايك نوصار وقال كانوا حاول تلقينا واحد لهرتا إن أريمو بدنا واحد جري إلا شلي إلا حلي إلا ما أنت هلا يصير دحين مرايا جري ونقدر دعياني ولا لك جاك وارنتي كسعودة تيك توك بي كل رالي قلين كبحين ساعة هرتا حليتو ضبير وآدير بنا شوقي إن مركي أرنتها سداعيسي وآدي إلا إيو وروح مصدح كنا قفنا كبرنين يعني لكن مقالكي مركي لا جرجري ميل بدن لجيي dad badan arkeen oo musiiqo qol ku daalatay siyaabo kala duwan loo fasirtay ama siyaabo kala duwan loo arkay okay dad badan waxa jira horta aniga igu xiran kuwa ku xiran jaak kuwa ku xiran tiimaya oo dhan dad badan aniga jecel baa jira walaalahay oo igu xumaaday barnaamijka markay arkeen kadib okay horta barnaamijka sida loo malaynayo ma ahayn oo wax saaweyn ma ahayn markii runta laga hadlo oo xaqiiqda dhabta loo gudbo arin saaweyn muusan ahayn actually wuxuu iska ahaa iska dood wadaag ani iyo walaalkii jaadna rixmartay doodiina ay nala yar fogaatay oo nala yar xumaatay ilaa bili aadam baan nahay qasab ma ahan inaan isfahano oo arabi ilka iskugu dhow isku qamaan okay so maadaama doodii ay nala yar fogaatay oo أنا إسكو فهم ويني تودي كل واحد صحيح كوالله يسأل هذا أنا وان كهل سيء وهذا يسوع إسكو يرفهم ويني وهذا الذي نغير حكم بعدين نغير كل بعدين كنت مركي لهذا أنا شريته أنا إسكير حنوصل إسكير عاجز سام بيسوي يقول كان لايف أنقلنا سيدي على لايف كوكرناي والله أرنو حتى ما قرناي واحد كهذي حتى ما أقان ده مركي رنت على هذا ممكن dad badan oo waxa jira dhahay Maariya maxaa kugu dhacay masaana isku bedeshay masaan no Maariya dhax gale kulay markaad qurba timaado kulay waxa la kulmaysaa waxyaabo kala duwan dad kala duwan cimilo kala duwan oo cimiladaadii aad hore u taqaanay ahayn waxaad arkaysaa maarta caqabado kale oo ku tagtaagan waxbaad arkaysaa waxba suuqa sawiraya adigii oo dadkaaga ka soo dhaxbaxay waxooga maaragtay yaa dareemaysaa marka laga yaabo gabadhan oo maaragtay jawgeedan caadi ahayn inay soo gashay live-ka ka bacdeena de waxoogaa dulqaadkeedu iska yara waayo maalinkeeda xumaan malaynaya sababtoo ah qofku markuu maalinkiisa xun yahay oo uu soo galo live TikTok oo whatever meel ka soo galo wuxuu doonaa soo galo haddii maalinkiisa xumayd uma malaynayo intuu xakameyn karo qofka bilaadanka inuu de
lifeka gudihiisa soo ku jira isxakameyn karayo. Waayo maalinkaaga dab xumayd san aaminsanahay you can do whatever, yani wax kasta samayn kartaa oo maaragtay kusoo hor istaaga ama kula gudboonaa samayn kartaa. Waayo kama fiirsanayso marka ayada dumarku qurbaha markay yimaadaan waxoogaa ha u malayn dad baa leh waa isbedeshay comment TikTok baa arkay waa isbedeshay shalay baa tagtay Canada. sidaas ma aha, yani aamin qofkan inuu ka tagay dad bulsho oo ku dhex noolaa oo asxaab la ahaa uu meel yimid kaligiis oo kaligiis soo istaagay dhowr fikir oo kala duwan ku abuurmayo laga yaabo maalinkiisu inaan qurux badnayn. marka qofka intaada maaragtay charge garaynin hubso wax waaye sideedana qofku magaalada ma bedesho safarna ma bedelo guri cusub oo degan ma bedelo shakhsiyada iyo dadnimadu wax loo dhashto oo wax loo kala dhasho kulli qofkii aniga de intaas sano igu xirnaa wuu yaqaanaa oo maanta qof de ma aragtay one day isku bedelaya totally dabeecad isku bedelaysa ma jiraba. laakiin sideeda qofka waxa bedelo waqtiga ama jawiga ama markaas xaaladda uu ku sugan yahay ayaa bedesho. okay intaas markii laga soo tago magacyo kala duwan ay bixiseen Mrs 3 days ay bixiseen kuwin maxay ahayd Mrs Canada ay bixiseen kuwin 3 days ay bixiseen wax xaalado ba ay bixiseen. horta erayadaas iyo hadalladaas ay ku imaadeen waxay ahayd si iska caadi oo just funny ah. anigana marka inta imaadeen kadib wallahi aniga xataa go'aankayga ahaa markaan Nairobi ka soo tagayay runtii markii laga hadlo go'aankayga wuxuu ahaa haddaad xagga tagto social media ama break ka qaado ama iska dhaaf. marka runtii ka hadlo sababta aan markaas u dhahayna waxay ahayd waan ogahay social media waxa lagu jiro waa iska waqti yar. Nairobi markaan joogay arrimo kala duwan baan ugu jiray oo adiga waa dareemi kartaan. okay marka inta imaaday marka anigoo lacagta aan ka sameeyay social media ka badan inta ka sameyn karo baa haddana waxa isri maadaama inta aad cusub tahay waqtiga in asxaabtaada uga faa'iideeyo waqti la qaado de inta soo kuna qof 400 kun oo qof dad easily ha uga tagin ee iga ahaydta aan muuqaalada ku soo doobay aan jeclaan aad ku sii joogo on mar walba adeegkana ay leeyihiin soo update gareeya muuqaal noo soo doob okay marka social media horta iska dhib badan yahay qofka bini'aadamka sidiisana perfect ma aha oo yani anytime perfect ma noqon ma jirto de qof bini'aadan oo dhihi kara waan dhameystiranahay ma jirto. qof bini'aadan oo dhameystirana ma jirto 100% taas waa isku raacsan yahay. iska da adigoo de ma aragtay ummadii Nabi Maxamed Nabi Maxamed alayhi salatu wasalaam baa mararka qaar intuu khalad ka dhaco baa aayad quraan inta lagu soo dejiyay waxay lagu canaanay wallahi maxaa u sameeyay maxamed. marka qofka bini'aadanka qasam ah horta perfect noqdo every time and every day and every moment macnaha mar walba perfect ma noqon kartid. okay hadalkii uu naga yar xumaaday asagoo nin ragda Ilaahay ka dhigay boqolow ah xogaa uu yara garan waayay inuu xaalad dejiyo oo soo homaariyo xaaladan kumaada aqoonine maybe waxba ka khaldan bal u yara dejiyo isdhihi waayay uu garan waayay anigana de dumar ba ahaay wixii way iska halowday. after that hadalla waxa jirtay aan u adeegsaday aan ku iri walaalkay Jack ana ka xumaaday intuu laga hadlo dad badan si khaldan u fahmeen asxaab badan ay u dhaheen Maariyo arrinkaas waa inaad raadigelin ka soo bixisid. inta u sameynay waxay tahay qalbiyada ku jecel ina ilaaliyo walaalhay ah koona asaga uu ka yahay maadaama khalad uu fahmay ina qalbigiisa horta asaga ilaaliyo. asaga markii laga soo tagana dadka igu xirnaayo u jeclaa ina qalbiyadooda ilaaliyo oo adinka idaawanaya ka mid yihiin Canada dadka wax weyn u maleeyahay ma jana ma kana horta wax ismeesha ma yaalaan xaqiiqada markii laga hadlo qofka meesha uu ku koray ama meesha uu ku soo barbaaray familkiisa asxaabtiisa dadkiisa ay joogaan ayaa boqolkiiba boqol ka muhiimsan meel wadan cusub hadda imaado oo u baahan la qabsi u baahan inaad fahanto. maanta aniga weli marti ah oo still Maariyo welcome leedahay oo qofkii arka oo marti ku awdalkii oo u baahan inaad fahmo meesha aad garab istaagi lahaydeen oo dhigi lahaydeen wada qurba joogta walaali macaan waxaa sameey kan sameey dad badan oo idin ku jiro wanaagsan way jiraan laakiin dadka qaar koodna si khaldan bay wax fahmeen. okay Kenya
wallahi alcadiim waxa niyadeyda ku jira oo aan habeen imaan aan sugi lahaa waxay ahayd wallahi waa markaa daacad ka hadlaya waxa habeen imaan niyadeyda ku jira waxay ahayd inta markasta oo ka maqlaan soo aragno aniga iyada kulley ama bax way tahay si maartay excited ayay u rabtaa inay uga tagto wadankan oo u aado halka ka timid waayo halka ka timid family asxaab ay isfahmeen intuba ayaa maarta xagga jooga marka qofku inkastoo qurux badanta inay yar dulqaadato oo waxoogaa dalka yar fahanto barafka iyo waxoogaa maarta yar dhaxlugayso ay aragto cimilada meesha ka jira laakiin waan ka maqlaa intaas ayadoo le travel document intaan hamar qaato inaan cararo inta in leg bay jirtaa bay leedahay marka gabadhii faraha lagu hayaaba ayadaa ordaysaba oo idiinsoo ordaysa oo maarata habeen iyo maalinba qalbigeeda ku haysa travel documentiga markaad gacanta ku dhigto meel kale ha ka bilaabin ya familkaaga iyo asxaabtaada ka bilo taasaa horta niyadeyda ku jirtay maanta qalbigay horta daalacanaya ma jiro laakiin dadka dhahayaaba kanada bedeshay saan waaye waxas ma jiraan wixii kaftan ah waa meeshooda wixii reality ahna dee qof walba oo caqli u saaxiib ah u fahmi karaa okay marna horta muuqaalka inaan sii dheereeyo oo uma talagelin muuqaal aan uga hadlayo wax ama funny ah ama challenge ama wax adinka waqti gooniya hadda ay kugu sameeyay entertainment ma aha laakiin muhiimada muuqaalku wuxuu ahaa maqaldama waa ilaahay qof bini aadana ah qaladna iga dhici karaa perfectin ma noqon karo markasta meeshaan waxaan ka raali gelinaya dadka walaalihii ah oo qaladka ii fahmay oo sida khaldan wax u arkay ama dee anigu ofcourse qalad way iga dhacay uma dhahay qalad ma iga dhicin oo hadallada aan adeegsado way khaldanaayeen sax weeyaan waxaan rabaa horta inaan ka raali geliyo koow walaalkayga iyo asxaabtiisa iyo asxaabteyda iyo dhammaan asxaabtan wada xiran oo dhan oo yani sida khaldan oo fahmay oo ilaa shalay ilaa xalay igu soo qorayeen raaligelin bixi raaligelin sameey yes waa sax intaa markii laga soo tago muhiimada meesha usoo fadhiistaaba waxay tahay waa case close inaad ka dhigtaan wax walba because dad walaalo ah isla soo cayshay oo isla soo waqti isla soo qaatay ayaan nahay even maanta haddii aan waxna dhex maraan oo kale waxay ku qurux badan tahay inaan si hoose waxayna u dhamaysano laakiin inaad commentiyo khaldan aada usoo qortaan asaga oo weliba haddana qalbijab kusii ah sidoo kale aniga ay isoo qortaan yacni inay wax kala fogeysamaa wax ma isku soo dhaweynayso mar walbana waxaday dhacaan waxaa wanaagsan labada qof ee walaalaha ama muslimka ah in la isku soo dhaweeyo oo maslaxa dhexdooda laga abuuro laakiin ma wanaagsana in hadallo kala fogeynaya loo isticmaalo horta dad maanta laba qof asxaabteeda isku dhacaan ad kana gooni wax ugu sheegto kana gooni wax ugu sheegto that means qofkaas waa xaasib baa dhihi kara qof wanaagsan ma ahan waana namiim waayo dadku isku jiraa markii walaalnimo ka dhexayso wanaag ka dhexeeyo asxaabnimo ka dhexayso la isla soo cayshay maanta intuu gurigayga tago still oo familkayga booqanayo anigana sidoo kale aan iskaga warhayno dee xiriirkaas oo kale si easy ah kuma baaba'ayo haddaan soo fogaadan inaan isku xisno aan sii jeclaano iska warhayno moogii horta in la kala go-o ma noqonayso ilaahay baan ka magan kala taas insha allah khayr bay noqonaysaa muuqaalkana markaa inaan kusii dheeraado waxaan ka codsanayaa please intaas ku joojiya qalad uu dhacay waana laga soo laabtay walaalkii iyo dhammaan familka iyo asxaabta igu xiran waan ka raaligelinayaa waana kusoo celiya markaad muuqaalkan ma raba inaan ku dheeraado intaas kusoo koobaya aada iyo aada umahadsantihiin thank you so much qolkada ka heshay like subscribe everything commentiga positive-kan insha allah videogii halkaas noogu eegyahay waxaan rabaa inaan ku darsado laba eray kaliya horta waxaan ka helay sida deganaanshaha ee quruxda badan ee intay kaamirad usoo hor fadhiisatay u saxday wixii ka dhacay xaalay mooyaane habeen hore tiktok waxaas kolley anigu si kale uma arko yacni laba qof oo walaalahoo maaragtay hadalkooda isyar dhaafay oo kalun bay ahayd marka in wax lasii bumbuuniyo ma aha soo maa yacni wax lasii bumbuuniyo ma aha de wax weyn oo dhacay oo kale ma aha kolley muuqaalka waa daawateen gabadha si qurux badan bay maaragtay
oga raali gelisay qurux ku dhiila wixii dhacay. midda kale shacabka ku xidhnaa ee maarata waxyaabaha khaldan la wareegaya laftirkooda si fiican bay ula hadashay. wixii dhacay way dhaceen. kolley dee idaba idiin maamahda anu idiin maamaahi maayo. wixii dhaceen way dhaceen. hadda wixii halkaa ka dhacay ku ilooba videogaas maarata hadda gabadha soo duubtay. intaan muuqaalka ku kulmi doon waxaan iga tegayaa sidaas iyo ammaane Allah.